Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal. Magacaygu waa Axmed, channelka daawanaysaana waa Axmed Abar Official. Saaxiibayaal, waxaan idinka raaligelinayaa muddadii aan idinka maqnaa khadka inaan waxba soo gelinin casharadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa Xariif Sports. Aanan idiin soo gudbinin, taasoo ay sababtay taleefanku inuu screen-kaga jabnaa, maadaama aanan kamarad iyo computer iyo laptop iyo aanan haysanin. taleefankayga dhexdiisa aan idinka soo duubi jiray, taasaa kaliftay in taleefankii waxoogaa iga yara ciladoodo aanan casharadii aanan idiin soo duubin ama aan idiin soo dhigin youtube-ka ciwaankeenna. Marka caawa waxaan jeclaystay inaan waxyar idin ifiyo Xariif Sports, waxyaalaha uu maaragtay dad qofku ku horumarin karo, lacagna uu ku guuleysan karo. Horta saa wada ogtiinba Xariif Sports dadna waa dad la haysta, dadna waa dad fahmila oo maalin kasta lacago iyaga laga faa'iido, dadna waa dad faa'iida, kolle faa'iida kolle khasaara, laakiin faa'iidadu ay badan tahay. Qofkii fahansan laazim uu ka faa'iidayaa, laakiin qofkaan fahansanayn isagoonba laga faa'iidaya. Marka saaxiibayaal, inaad waxaad isku daydaan in casharada aad si fiican ula socotaan, taxanana idiin ahaan doonaan. Hadda kadib aan si fiican idinku soo sharixi doono. Message-ka xagga hoosena aad noogu soo qoraysaan qof walba waxa uu u baahan yahay in laga caawiyo. markaad fahanto ayaad gelaysaan deedna sida loogu guuleysanayo, iyo marka ay u baahan tahay inaad geshid waxa dhanba waad la soconaysaa, wasirta ayaad fahmaysaa. Marka saaxiibayaal, bahalkani wuu iska dhib badan yahay, waxyaalo badan ood kala kulmi ayaa jira, laakiin qofku markuu si fiican u fahmo isaga ayaa faa'iidaya, waana u fududaanaysaa. Geemamshuna way badan yihiin. Geem haddaad waxoogaa ku yar khasaarto ku kala la galaa, ama diyaarad waa laba nooc, aviator-ka iyo jet-ka. labadaas ay u qaybsan yihiin. midna 2 riyaal baa ugu yar wax la galo, midna 5 riyaal baa ugu yar. Marka kolba mid ayaad geli, aad ku khasaarto mooyata kale ayaad gelaysaa haddana marka labaad. Geeman kalaa jira oo fara badan sida ciyaaraha ood maaragtay kolle online ahaan aad ku baktiyaa nasiibsanayso, kolle ciyaaraha Premier League ama sida maaragtay ciyaaraha Yurub iyo kuwa basketball-ka iyo kulli football-ka iyo waxa dhan way ku jiraan. Markay kooxa ciyaarayaan ayaad baktiyaa nasiib, waad sii saadaalinaysaa, deetana saadaashadaasaad ku guuleysanaysaa lacag waxay noqoto kooxda badinaysa oo kooxda laga badinayo. Marka geemashu way iska fara badan yihiin. Geemam kaloo iyaguna maaragtay fiican baa ku jira meeshan, oo kolba geemkaad istiraado ka mid haddaad ku khasaarta ku kala la galaa, kii lama sii wado. Marka saaxiibayaal, cashirkeenu caawa wuxuu ku saabsan yahay ila faahfaahin qofka in uu fahmo Xariif Sports-kan sidee ayaa maaragtay looga faa'iidaa. Laakiin waxaan idiin soo dhigi doonaa casharada ku xiga sida lacagta markaad ku guuleysato loogala baxo, oo dad badan soo weydiiyeen, iyo hababka aad maaragtay u soo gelayso ama xilliga ay u baahan tahay inaad geshid, iyo aniga laftigayga oo ciyaaraya oo idiin soo duubi doono sidaan ugu guuleysanayo iyo sidaan liiga guuleysanayo. Kolba anoo ciyaaraya live aan idiin soo duubi doono.
dadka Ethiopia jooga Xariif Sportskan ayaa maaragtay gamekooda ay lacag bir ahaan ay ku helayaan marka ay guuleystaan, laakiin caalamka waxaa laga ciyaaraa 1xbet oo dollar ah, kaas oo kan xoogaa ka yara fiican maadaama dollar aad ku ciyaarisid $1 iyo dee laba riyaal oo bir ah way kala badan yihiin. kaas dhibaatada jirta inagu ma ciyaari karno sababtoo ah dee dollar kumasha maaragtay inagu ma hayno dollar ahaan maadaama maynan bangiga caalamiga joogin Ethiopiana ku olin dollar inagu ma isticmaalo. taasaa keenaysa inaan inagu aynan kaas inaan shaqo ku lahayn. marka Xariif Sportskan iska yareeriyo waana isku wado sida loogu guuleysanayo kaa iyo kan. marka qof walba wixii uu rabo in looga faa'iideeyo hoos kusoo qoro commentiga waxaas ayaan rabaa ama waxaasaan fahmi lahay ama maaragtay hoos kusoo qora si aan cashir uga soo sameyno aan idin fahansiiyo. barnaamijkana sii la garaya subscribe dhaha share dhaha si uu channelkeenu u hormaro maadaama oo rabno inaan noqono qof keliya channel idin faahfaahaya waxyaalaha faa'iidooyinka aan noqon doono insha Allah. dhiirigelintiina ayaan arki doonaa, aniguna aan kusoo samayn doonaa dadaalkayga waxyaala aad ka faa'iidaan. marka waxaan idin leeyahay subscribe saara, kor usoo qaada channelka. xogaa shuruudihii subscribe-ka waa inoo gaari xilkii loo baahnaa, laakiin watch time hour ayaa waxoogaa u baahan yahay in shuruudahan buuxino. aadna waa idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.